laba dareen baan qabaa dareen waa mid farxadeed oo aad iyo aad ugu faraxsanahay go'aanka cadaaladda ee ka soo baxay maxkamadda cadaaladda ICJ oo kolkii horeba inagu waxaynu raadinaynay oo gaarhii ma jirin baddeena ayay ahayd inaan xaq u leenahay sidii loo sheegay wararkii tirada badnaa ee la sheegay inaan ku noqdo ma rabo laakiin maxkamaddii ay caddaysay wixii aynu xaqa u leenahay taasi kolkaa waa farxad ummadda Soomaaliyeed oo dhan meelay joogtaba u soo hoyatay waa guul la wada leeyahay ee ayna cid gaari lahayn ummadda Soomaaliyeed oo dhanna ka dhaxaysa dareenka kale aan qabaa waxa weeye waxa ina saaran oo yaala chapterka 7 1947 ayaad moodaa halkaynu joognay inay taagan tahay oo ahayd waqti trusteeship Soomaaliya la gelinayo oo kolka ay isku haystaan dalal waaga adkaaday dagaalkii labaad ee adduunka iyo dawladdii Talyaaniga oo halka gumaysanaysa mid walibana ay rabtay in trusteeshipka loo dhiibo hogaaminta Soomaaliya waxaan isleeyahay ama maanta u eg tahay iyada oo chapterkaasi ina saaran yahay hadda aan ka maqlaayo idaacadaha AU-da oo leh hala ii dhiibo iyo dalalka ama United Nations kuba ay leeyihiin masruufka baa anaga idin siinaynay oo macquul ma waxaan isleeyahay ma waxa laynoo wadaa in trusteeship layna geliyo arrintaasina waxay ku timid oon qabaa oon caawa hortiina ka leeyahay waa inaga liidnimadeenna xumaanteenna dadnimo la'aanteenna 30 sano Soomaaliya waxay ku jirtaa oo aynu taagannahay inaynu intaa garan weyno midoobi weyno hal ahaan weyno dalkeennii iyo dadkeennii isu keeni weyno waxa weeye waxaan ka xumahay fanaaniinta Soomaaliyeed wax badan ayay inoo sheegeen oo aynaan marna waxaad moodaa malaha ma dhageysano waa laynoo qaadayaa heesihan haddaan maqlayna ee fiicnaa Soomaaliya Soomaali baa leh fanaaniintana waxaan leeyahay heesahaad qaadaysaan ee wadaniga noo sheega qofkii sameeyey waa xuquuq oo muwaadin Soomaaliyeed leeyahay waa dhinteen aynu xusno cid walba wiilkayga Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaan leeyahay wuxuu iga ahaanayaa raalli sababtoo waxaan ka mid ahaa dadkii qabay inuu heshiis uuna shaqo ku lahayn galay oo badda baarlamaankii 8 ku jirayna waxaan qabaa hal shay oo fiican buu ahaa waxaanu samaynay go'aanka iyagu wuxuu ahaa magaca la siiyay waxa la oran jiray dhaxal dhowr oo micnihiisu ahaa bad berri iyo hawo ilaa dawlad Soomaaliyeed
oo shicibka Soomaaliyeed doortay ka timaado saddexdaa cid ka hadli kartay ma jirto intaasoo horta ahaa go'aankii aanu gaadhnay waagaas marka waxaan leeyahay icafi oo waxaan ma aha keligay waxay ahayd xubno badan baanu ahayd oo halkaa taagan Soomaaliya waxaan leeyahay oon ku soo gabagabaynayaa war halka aynu joogno aan aragno oo ha noqoto inaynu samayno horta aan dooranno madaxweyne arrintaasi dareenkiisu ay ku jirto inna hoggaamiya isku keena isu keen oo aynaan noqonin tirashiibka laynala maagan yahay inaynu ka badbaadno arrintaasaan ku soo gabagabaynaya raalli iga ahaada aad iyo aad raalli iga ahaada waad mahadsantihiin